هذا هو وصل قريب تقانا بداني أنا قاعد هسني وحتى إيست أفريقيا كو إنفايت قريه إيست أفريقيا نقول دري واحد مصير خلط أهو بدن ودك قالي مركب ودك أنا وكتر سنة هنا قايلينه وأن دينه محنو ديده waxaan u diidan shacabkana shacabka reer Puntland waa dad isla ma taqaanaa aaminsanba inaysan cabaadin ay hal ana la hadlay anoo dhex jooga ana garow hada dhex jooga rubeeridii ma sheega dad ba xogaa warwareystay waxaan maxaa u halweyseen ma naga daayo kuleen anagu dad uma cabaadi karnaa mana cabaadna taas ku leeyihiin shacabka saas waa reer Puntland illa barawa ay halaan siyaasi inuu wax u sheego way shacabku ما dadka waxay cabaadi laayiin ana runta ku sheegay iyo shacabkan qofay ugu laabtaan fiir dhigeysanta inaad waxa jirta maanta had halaysa qaybi kiin maxaa way karin boosaas ma iga qaybi kaliya ma waxa yar la ku darsanay waxa waa ninkii siyaasiga ayaynan ogeyn meesha u socdo dadku waxay la hadli laayihiin ninkii siyaasiga aragtidiisu na gudbin oo wuxuu u socdaa xamar بين محل سوق شيء نيجي سياسي وأنو قد بيا أريد تديسا أنا جو ونور معتي وين دالني ما ديه كرتي ما ديه كر نيجي سياسي كان تاسوا ما شو حيان وهذه كذا بحب هذه كذا هذا وحكي بالعربي السماء ده نبى وسكوك عصام رنت أنا قاعد تعرف تسكو مشاغنو السن كان إسلام كا بقر كا كوا هذا أسعارك كريم بقى ونقول بالله أنا وحجامني نيو هو أنا جو حقوبها هاي إن قبل لا السماء inaan dhahno waana lugoosin inaan hadalno oo qolo walba ay qeyliso ay tiraahdo isinkooda isku imaad isimada maxaa isku imaan laadeen taasna waa niyo mid annagana dhex taala waxyaalo badan oo xin ah oo dhex taala bay waxay ka gaabinaysaa danta guud oo Puntland ah wallahi bani dim sheegay waxyaalaha taas ciladaha taas way ka mid tahay aad been uga mid tahay hadda isimada harti oo dhan isimada daarood oo dhan way isku imaan laayeen واي وشير اللاعين تتكلم لي اسمه مقدش محل مقدش جوجو يدكو دياشو ذا وحليهن محل هنيو مقع جود بي وضل هيهن الليهن باجرته كشران سوء مادان بيلين هذه هو صوت أول الشرايان حتى أنا وكمور قبل لكن أنا ومليهن مشرنا اسمه ده وين لسكوك هنا اسمه ده وين وضح اللان أنا جيب هذا ثيك لجوجو إنه كلا تشبينه مركا بعد بدر في النظر ده أنا جاي قبل هذا دول تراك يعني وين أيها ونيك نجدي ونيك نوع علمي بنا عبدول جاسبوها دول تراك يعني بوقت كفرماجو هوسجي وصحيحة أيضا لها أو لغها ورمشروعية بدن بانوس الصعدة ور إن هذا روح نقصهين بو صحيح سوق لها سومال لما رادين يا إيوناك يوحيروا العجها اللي بدلنيه مركب بروبلهم كان يستوى حواي أنك واساشك توالال اسمه iyo dadkana siyaasiyiinteena waliba dadkan isleena nagu cilmi badan ba la jabiya hadda waxaan lacagta u helay xasan sheekh looga heestaa waa saxiixii uu sameeyay Abdul Gaas waa la ogyahay taas sukad ismada maxaan uga baahanahay hadii wan ma mufud la aado oo aanu golo deegaan leenahay oo xulba leenahay maxaa looga baahan yahay isig waxa looga baahan yahay ku sheegaya hadda right now markii ismadaada ay isku xiran yihiin ay israacsan yihiin waa ka awood badan tahay markii ay kala jiran yihiin ismada maxay sameeyaan adoo one man one vote u socdo oo waxaaga wata ba haddana ismaday ba waxay dadkiiba awood ku leeyihiin markii dib ay dhex dhacdo ama wax ay dhex dhacdo waxa marjac loo noqdo in la helaa oo dadka kala qanciya marka maxay noqonaysaa marka إلا دولدي أيها كلا تجربان وكلا حزبية مركب مرجع لون نقول لها وعيجي still وعيجي بطلنا ده اسمدنا إن كقناعة عنا معهن بطلان وحي كسو ماشي واسمدني هراء كنت إدي شيء كو عصب كوي هراء باكا كرتبنا كان وناك سنة وكان متقانا بطلان ما تشعلا كو هاد تشوفه ما بدل كرا مرك ما بدل كرا كو كرتل ملكيني كرا walaalay doorasho baa jirto bay hadda ku yimaadeen arinta waraade waa idin salaamay waa maxay meesha dilaaca ka socda iyo isimada iyo waxa la sheegay warnaga muslimiyo meesha dawladda baa maxay tahay isimada iyo waaba wareersanaya bal ku soo bal فيري وانا ضد كانوا شاكتها شاكتها ورهاده وإدار بلان ضد بدن وجلع سمرة إذن كجرا موقتها أو وحبا أن كهل كريم
haddana waxay isku dayayeen inay wax ka hadlaan meesha isinka ma shaqeeya adeer dowlad baa ka jirta sharci baa ka jira baarlamaan baa ka jira dowladaasaa wax kala wada ma fahantay marka isin baa wax qabtay isin baa haday kala jabin maxaa naga galay annaga waa danahooda ما بعيد سامودid maaha saamodid isin u yahay dowladda isin uma aha ma fahantay beeshiisu isin u yahay halka uga bax marka idinka hadda calaacalkan iyo dowladda sidaan iyo dowladda federaalka maxay Puntland tari jirtay isha maxay u sameyn jirtay mashruucyada ay u sameysay bal sheeg bal lacagtay siisay sheeg bal waxay u qabatay sheeg Puntland iyada waxeeda urursan jirtay iyada canshuurteeda maamusha iyada dekadaheeda maamusha iyada waxeeda oo dhan maamusha ma fahantay dowlad federaalna lacag ma siiso meesha la dhaho Puntland waxa la qaybsado waxay tahay lacagta ay bixiso beesha caalamka oo lagu kabo maxaan ku dhahayay dhaqaalaha ee Soomaaliya waa lacagtaas lacagta la isku haysto oo Puntland qaybteeda la siiyo tiina waa la siyaasadeeyay waa la xayiray sida ogtahay marka iyadoo taas ay xayiran tahay ba haddana Puntland umaysan istaagin meel dagaal bay gashay ciidamadeeda mishaarkii bay bixinaysay mashaariicdii baa socotay eelbooradii dekadii waa shaqaynayaan wax haba yaraatay istaagay ma jiraan annagoo maanta dagaal ku jira dagaal waa ogtahay dhibkiisa qarashka ku baxaaya dhibaatada uu leeyahay meesha lagu dagaalamay xitaa waa ogtahay dhibaatada ay leedahay buuraha war ma haysaan ma ogtahay waa iska hadlaysan meel qabow waa iska fadhidaan waa iska yacni sidaan arrintu sidaan ma ah waa inaa wax fahantaan buurahaas lagu dagaalamayo waxay ka kooban yihiin dhowr boqol oo kiiloomitir oo isku wareega oo buur intaasoo kiiloomitir la koraayo waa war ma haysaan ma ogtahay godad bay ka qoteen nimankan meesha ku jiro wiilashan yaryar oo koonfur jooga oo dugsi quraanka al-shabaab uu urursaday oo ninkan hebel caldheer iyo maxay ahayd ay madaxda u yihiin ma aha nimankan waa niman Afghanistan iyo Iraq ka yimid oo buurihii Afghanistan ka yimid oo international daacish way nimankan oo tababaran oo dhulka godad ka qodana oo wax walba gacmahooda ku sameeyana nimankan waa nimanka la raadin Mareykanka iyo ay raadinayeen oo la raba in Guantanamo Bay lagu xirxiro oo soo baxsaday marka idinka waxaan lama socotaan arrintan waa arrin ka weyn wax ninba halkaan galay iyo waxba sidaan ma ahan nimankan waa niman aad iyo aad khibrado weyn u leh oo meel walba maxaan ku dhaw wax ka sameyn kara saas ay tahay fiiri sidaas iyadoo ay tahay dowladda Puntland way xakameysay buuraha way soo dhaafi waayeen wadanka way soo gali waayeen way isku dayeen inay wadanka soo galaan laakiin hal tuulo way soo gali way qabsan waayeen marka sidiinaba dhaliishan badan iyo waxaan aawadaan joojiya inta wala la dagaalamay dowladii waxa la dagaalantay faroole tii waxa la dagaalantay Cabdulle Cali Gaas tii dani baa hadda maxaan ku dhahay la dagaalameysay dadkii ku dhintay dhibka ka soo gaaraan ognahay inta buurahaas lagu hayay nimankan laakiin intaas way soo xoogaysanayeen dad dowladda mucaarad ku abaana keenay wadanka oo soo xoogeynay oo wadanka ku abuuray waana ognahay marka hadda iyo talo nimankan go'aan waxa lagu gaaray in la iska difaaco hadalkan waa dhan yahay adeer madaxweynaha uu idin sheegay wuxuu yiri dhulkan waa la xoreynaya al-shabaabna waa laga xoreynaya waxa loo baahan yahay isgarab istaag taageerid af iyo adin iyo maxaan ku dhahay iyo maalba waa loo baahan yahay in lagu bixiyo ciyaar maaha marka halkan waxa la rabaa TikTok-ga niman yahow dhinaci nimanka laga jiifa jilicsantaan iska daayay gabdhihi waa gurmadeen dhinaca walba gabdhaha reer Puntland sharaf iyo karaamo ilaahay ha karaameeyo meel walba waa ka gurmadeen meel walba dowladooda way garab taagan yihiin laakiin waxa niicda meel walba la taagan oo waxba laga hayn waa ragga hadday TikTok joogan waa jilicsan waxay ka hadlayaan mataqaanid hadday halka joogan waa mucaarad meel walba waa ku fashilanteen horta ma fahanteen marka qolalkan annaga aan dowladda laga taageerayna haddeedna hadal adag oo dadka wax tara idin ka dhahayn iska aamusa adeeraya ina iska aamustaana idin roob isim baa isku mucaarada halkaabaa ka dhacay isimada hamidooban hal la shir maxaa loo shiriyaa dowladda xasan gurguurtaa la gurguuranayo markuu soo dhigana waa laga qaadaya maxaa kaloo jiro midda kale Puntland saameynta ay leedahay hadda fiiri yaa la falanqeeyaa dal iyo dibad caalamka iyo Soomaaliya iyo Puntland u baa laga hadlaa wax kale oo laga hadlaa ma arag saameyn leh TikTok yaa qolal ka saaran madaxdeena la falanqeeyna laga hadlaya hadday dowlad jirto oo wax qabatay oo wax haystaan may falanqeeyaan may noo sheegaan dowladda waxaasay qabatay horumarkaasay gaartay xaggay aaday halkaasay xoreysay iyadoo la leeyahay ma aragtay maya maadan arkin meel ay maamushana ma jirto waxay xoreysay ma jirto
halkaasuu diyaarad sii saaran yahay madaxweynihii Soomaaliyeed midda kale dani baa mucaarad ku ah madaxweynaha saasuusan Puntland wax u taraynin war waxaas iska daay waxa sharci ma aha madaxweynaha si kasta oo mucaarad loogu yahay waa mas'uuliyad shacabka Soomaaliyeed ka saaran inuu wax taro idaas maar qofka kuwa mucaaradka waxaas hadal ma aha ilaahu ma ummadoo dhan mucaarad ku ahaato mas'uul buu qaaday isaga wixii mucaarad ku ah shaqadiisa ma aha shacabka Soomaaliyeed oo madaxweynaha u yahay waa inuu u gurmado meel kasta ay joogaan xaq bay ugu leeyihiin inuu wax taro inuu wax alle waxay u baahan yihiin ka taageero inuu wax alle waxay u baahan yihiin u keeno inuu meel walba u istaago xaq bay ugu leeyihiin ilaahu ma laga hor istaago ilaahu ma baawurta u soo raray xabada loo qaato idaas maara waa xaq lagu leeyahay way horta waa inaad taa fahantaan dani baa mucaarad ku ah kan baa wasiir baa mucaarad ku ah waxaas madaxweynaha Soomaaliyeed inuu qoro maaha adeer waa madaxweynihii Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed buu mas'uul ka yahay waa inuu gurmado waa inuu meel walba oo gurmad looga baahan yahay meel walba oo difaac wadanka uga baahan yahay waa inuu tago waa inuu taageero waa inuu istaago waa inuu ka hadlo ma fahantay marka waxana excuse ku sameeynaysan iska daaya mucaarad iyo in dadka wax la taro wax islaam ma aha adduunka madaxweynayaasha oo dhan baa mucaarad lagu yahay oo maalin walba wax laga sheegaa saas ay tahay mas'uuliyadda saaran oo wadankooda ka saaran way gutaan wax shaqo isku leh ma aha mucaaradna waa mucaarad wax tarka shacabka Soomaaliyeed kugu leeyahayna waa gooni waxaas ku qaldina madaxweynaha dawladda federaalka xaq ay Puntland ku leedahay way ku leedahay iyo lulay waxa tiraahdaa walaale dadka Soomaaliyeed ninkan Xasan leeyahay jeebkiisa xoolo looga soo saarmay waa hantidoodii waa dadku waa xoolahoodii waa wixii adduunka u soo dhiibay inuu u kala qaybiyo shaqa loo diray shaqada inuu dadku shaqadiisa waa inuu qabsadinaadar waa runta shaqa mas'uul isaga mas'uuliyad baa ka saar laakiin meesha waa qof mas'uula shacabka Soomaaliyeed buu mas'uul oga yahay xoolahoodii iyo maxaan ku dhahay iyo masiirkoodii buu mas'uul oga yahay oo loo dhiibtay waa inuu ku shaqeeyaa waa inuu danti Soomaaliya u doorato u qabtaa daas shaqadoodii shaqada idin shaqeynaya Soomaaliyeed waxba mucaarad ugu yahay xamar buu haystaa